بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha November 2018 shirkan jaraa'id halkaan ku qabanayno oo ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ay ku qabanayaan waxaan uga hadlaynaa laba arrin oo waaweyn oo muhiim ah isla markaana walaac weyn nagu haya tan koowaad waa wariye muddo toddobaad ku xiran magaalada Muqdisho oo 20kii bishan ay ciidamada dawladdu xirteen ilaa haddana maaragtay aan la ogeyn meel lagu haysto waxaana loo sheegay in maaragtay maalintii sabtida ahayd la keenayo maxkamad laakiin maxkamad lama keenin waxaana loo sheegay in xabsiga loo dhaadhiciyay wariyahaasi ilaa hadda ma naqaan sababta ku xiran yahay haddii dambi uu leeyahayna waxay ahayd in sharciga la hor keeno oo maxkamad la hor keeno sida dastuurka uu qabo marka waxaad moodaa inay tahay hab la doonayo in lagu caburiyo qof kasta oo hadla ama qof kasta oo maaragtay ra'yigiisa soo bandhiga waana arrin ku cad dastuurka Soomaaliya ay leedahay iyo dhammaan xeerarka caalamiga qofka wariyaha ama qofka suxufiga ah waxaad moodaa in loola dhaqmayo si aad u adag marka ma naqaana sababta loo xiray ilaa haddana loo haysto xabsiga dhexe loogu dhaadhiciyay iyadoo wax maaragtay maxkamada aan la marsiinin nuur ismaaciil maaragtay sheekh oo ka mid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed waxaa noo yimid oo cabasho ay nooga timid waalidkii dhalay waxa hadda halkan nala joogo hooyadii dhashay oo maaragtay sheegtay xataa in loo diiday in la arko waxaad moodaa in wariyaasha dadka wax qoraal loola dhaqmayo sidii qof maaragtay gacan ku dhigle oo kale oo xataa waalidkii loo diiday muddo toddobaad inay arkaan marka arrintaasi waxaad moodaa in ay tahay arrin walaac weyn ku haysa saxaafadda Soomaaliyeed isla markaana caburin ku ah dadka saxaafadda iyo wariyaasha wax u qora guud ahaan waxaa kaloo rabnaa maaragtay qodobka labaad oo inoo labeeyo ay tahay habdhaqanka xukuumadda hadda jirta ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayre waxaan dhihi karnaa muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soo marta saxaafadda Soomaaliyeed waxay ula dhaqmaan hab adag ma dabagalaan kuwa wariyaasha dhibaateeya waxaad ogtihiin in 15kii bishii Oktoobar ama bartamihii sanadkii bishii Oktoobar haddana soo dhaaftay wariye la yiraahdo Cabdalla Muumin ayaa maaragtay xafiiska ra'iisul wasaaruhu laftiisa dad ka tirsan ay u hanjabeen ilaa hadda wax baaris laguma sameeynin waxaad ogtihiin wariye in lagu dilay beerta nabadda halkaas ay xamar jajab oo niman askar ay toogteen ilaa hadda meel dabagal loogu sameeyay ma jirto xukuumadda wax dabagala iyo wax war ay ka keentay malaha sida suuragal u tahay wariye shaqo nin ku jira booliis oo shaqo ku jira in la yiraahdo lama garanayo qofkii wariyaha dilay waa arrin ku talagal ah isla markaana raali laga yahay sida noogu muuqata xukuumadda hadda jirta waxay u go'doontay inay wariyaashu kala qaybiso inay maaragtay ururadii saxafiyiinta iyo dadkii ay soo dhex galaan oo la kala qaybiyo waxay samaysay laba arrimood oo waaweyn oo hore aan u dhicin kow inay caburin ku sameeyaan wariyaasha Soomaaliyeed oo la caburiyo oo qaar la dhigay in la caburiyo iyo sidoo kale qaar la laaluushay oo inta maaragtay mushaar bila loo qoray bishiiba loo qoray ama suxufiha ah ama saxaafada ahaato isla markaa loo diiday inay runta sheegaan waana arrin kale oo walaac muujinaysa oo ay gaar u tahay xukuumadda hadda jirta sidaa daraadeed ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed wuxuu u arkaa arrimahan inay yihiin arrimo aad xasaasi u ah sababtoo ah haddii wariye la waayo qof maaragtay ka hadla arrimaha musuqmaasuqa ka hadla dabagal ku sameeyo waxyaabaha iyo xaqiiqooyinka jira ee wariyaasha ay noqdaan kuwa maaragtay qaarna la laaluusho qaarna loo hanjabo runtii waxay noqonaysaa arrin keenaysa in xitaa qatar ay gasho dawladnimada Soomaaliya sababtoo ah waxaan ka hadlayno waa wax u damaanad qaadayo maaragtay xeerka iyo guud ahaan dastuurka Soomaaliya u degsan sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa guud ahaan laamaha ay quseysay sharciga hadday yihiin baarlamaanka gaar ahaan guddiga warfaafinta sidoo kale madaxweynaha oo sharci ilaalihii inay arrimahan soo fargeliyaan oo xukuumadda hadda jirta dhibaatada ay ku hayso saxafiyiinta iyo saxafiga Soomaaliyeed maaragtay laga qabto isla markaana fargelin lagu sameeyo oo wax weyn laga qabto haddii kale waxay noqonaysaa in xaaladdu ay adkaato oo wax awoodi waayo in cid wax ka qabata waa yaabanahay culays badan ayaa saxaafadii Soomaaliyeed soo saaray dad badana maalin kasta noo yimaado oo sheegay in loo hanjabay saxaafada hoos noogu yimaada xukuumad maaragtay annaga ma wada dhahin xukuumad guud ahaanteed waaye laakiin waa dad ku jira xukuumaddii ama wasiirro ka ah ama maaragtay shaqooyin kale ka haya marka haddii xukuumaddu ay arrimahaasi wax ka qaban weysay waxaan rabnaa cidda ka sarreysa inay wax ka qabato oo wariyaasha Soomaaliyeed maaragtay xorriyaddooda iyo madax bannaanidooda loo madax banneeyo isla markaana la soo daayo wariyahan maanta la xiray maaragtay toddobaadka iska xiran wax sharci uusan ku xirnayn sababtoo ah wariyaha haddii sharci loo hayo oo ma dembi lagu haysto hal la keeno maxkamadda
laakiin ciidan maxkamad la keenayn waxay u muuqataa inay tahay jujuub waana hab muddaba la soo waday oo la doonayo in saxaafadda Soomaaliyeed lagu cadaadiyo saxaafadda Soomaaliyeed waa ku celinaya maanta waxay ku jirtaa meel khatara waxaana u sababa xukuumadda hadda jirta sidaa darteed qof kasta oo maaragtay Soomaali ah waxaan u sheegaynaa in aanay adkaan doonto in saxaafadda Soomaaliyeed wax shaqo ay qabato oo ay noqon doonaan qaar la ragaadiyey iyo qaar la laaluushay meel maaragtay saxaafadda Soomaaliyeed la isku halleeyana ay awoodi wayso haddii dhibaatada hadda jirta laga dulqaadi waayo